kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad naga daawanaysaan saaxiibo channel soo dhawaada meel kasta adduunka ka joogtaan muuqaal cusub ayaynu maanta idin haynaa waxaan ku soo qaadanaynaa qodob xasaasi ah oo dhanka ciyaaraha ah kaas oo ku saabsan haliyay kooxda Manchester United oo isku diraya macalinka kooxda Arsenal ee Arteta iyo kabtanka kooxdaasi Pierre-Emerick Aubameyang hadaladii uu yiri iyo magac uu ugu wacay ninka reer Gabon macalinkiisa Arteta ayaynu soo qaadan doonaa dajaa ila fadhiya ay dajiso dhow aad iyo aad Haruno haliyadii kubadda cagta hadii waxay isku bedeleen hadii ahaayeen laacibiinta garoonka dadkii garoonkaas kala firdhinayo kala maamulay ahaayeen hadda kuwii afka waa macnaha aan wariyaal noqdeen waxay arkaan shidayaan waxay arkaan isku dirayaan wixii afkooda ka soo baxay iska hadlayaan hadda waxa madax la isku gelinayaa Arteta iyo kabtankii kooxda kubadda cagta ee Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang waxaana sidaas falaya haliyay kooxda Manchester Roy Keane haliyay kooxda Manchester United ahna kabtankii hore ee kooxdaas Roy Keane ninkaas asoo garoon ku jiro hadal iyo dagaal iyo waxaas dhan buu yaqaanay waxa bilaaban had iskool saab hada hadal bartay rag badan hadlay marka Roy Keane wuxuu leeyahay maalin dhow wuxuu ku xanaaqay nimankii kooxda Manchester Arsenal guuldarada kala kulmay muxuu leeyahay waxay sugayaan golaha in uu macalinka inta soo istaago uu dhiirigeliyo aniga ma sugi jirno macalin dhiirigelin kama sugin ana nafsideed isku dhiirigelin macalin dhiirigelin kama sugi jirin qof aan ka sugayo dhiirigelin ma laha ana is dhiirigelin jirin maxay taa waxaan oo dhiig lahayn everke marka afa ka soo haray ninkaas Roy Keane ah waa uu soo hadlay waxaana uu soo bidaamiyay oo banaanka keenay hadal markaasi ahaa Aubameyang uu ku yiri macalinkiisa markii ay guusha ka gaareen garoonka Old Trafford kulankii ku soo dhamaaday ee gool iyo waxba ay ku adkaatay Arsenal kaasoo markaasi xidig reer Gabon uu goolkaas u dhaliyay guusha 14 sano kadibna ay ku soo adkaadeen garoonkaasi masraxa riyooyinka marka wuxuu leeyahay waraysigii uu bixiyay Aubameyang ayuu kala soo dhaxbaxay erayar magac yar xitaa aan shan xaraf gaarsiisneen okay oo ka soo qaatay oo kala soo dhaxbaxay marka haba kala soo dhaxbaxay wuxuu leeyahay Aubameyang ma ahayn inuu macalinkiisa magacaas ugu yeero maxaad meeshas maxaa ku xusan hadda way waxa ku xusan weeraryahanka kooxda Arsenal ee Aubameyang ayaa markaas tababarihiisa ugu yeeray Michael okay Michael waa ugu yeeray soo magaciisa Michael Arteta ma dhihin Michael Arteta magaciisa ana daro Michael aan soo qaadanano Michael soo qaad Soomaa Michael soo qaatay isagoo ka hadlaya guushii Old Trafford ay ka soo gaareen isagoo faraxsan wuxuu dhaliyay goolkii rigoorada ee guusha u keenay Gunners waxaana uu yiri kooxdu shaqo fiican ay qabatay qof walbana dadaalkii ugu fiicnaa ayuu soo bandhigay si fiican waa sababta aan u badin u leeyahay anuu shaqo qabtay okay hadalkiisu sii watay wuxuu leeyahay ma ogeyn tan iyo bilowgii inay qasab tahay inaan aamino qorshaha cusub Michael wuxuu keenaa waxyaabo aad u fiican waa nagu qasab inaan raacno meesha laga isticmaalo Michael wuxuu keenaa waxyaabo aad u fiican waana nagu qasab inaan raacno marka jumlada fiirisid wax qaldan kuma jiro laakiin waxa lagu haystaa hadii la raadiyo loo xirto wala soo helaa waxa meesha ku jiro Michael okay Roy Keane oo 49 sano jir ah haatan ayaan la dhicin sida Aubameyang uu macalinkiisa ugu wacay oo Michael ah xilligii uu waraysiga bixinay wuxuuna qabiirkan Sky Sports u sheegay Michael waa ninkii Michael kelmadaas Michael uu ku haystaa markii isagoo ka hadlayay qabiirkan Sky Sports wuxuu u sheegay ma aysan muujinin ixtiraam ma uusan muujinin wax ixtiraam Aubameyang wax ixtiraam ma muujin markii uu ugu yeeray magaciisa koowaad ee Michael wax ixtiraam ma meesha jiro everyone أنا صاحب ما معنا شغال كده حيسمع قربس من مياه معلم واي wuxuu dhigi karaa macalinkeena wuxuu dhigi karaa hogaamiyahena wuxuu dhigi karaa maamulaha kooxda Michael Arteta magaciisa taa dhameystiri karaa Michael Arteta u dhigi karaa magaciisa Michael hadda ixtiraam kuma jiro meesha ixtiraam kuma jiro ma waay jinka ma
هذا اللي كيسو سوى روي كين وحليه هاي ومامولها ومدح كوحدة وتوبرها وإن سداس لو يرى صح واي مامولها كوحدة مدح كوحدة وسرية انت سو بود اما adoo wareys bixina meelaha joojoogalada Michael wuxuu yiri waxaas ixtiraam ma ah to waa tababarahaaga waxa dhigi kartaa maamulaha waa maamulaheena waa madaxa koowaad ee kooxda adoo qadina kor u qaaday waa tababaraheena aad iyo magaciisa dhameystiri kartaa daartid si fiican laakiin ixtiraam ma muujinin laakiin inta marka dhahday maamulaheena macalinka kooxda koowaad hogaamiyaheena تبرهنا معلم كان ما كان هذي وقدرس وتاس وإن سداس لو يرى تاس احترام هو ليه تاس أيانا احترام وإن سداس لو يرى تاس أيانا احترام ما أهن إن يرهدان ميكل سأقول إيه كلام ما نقبض معنا ما نقبض ما أهن صاحبك ما صدر ما صاحبك قدروا أنا حتى خسارة قدروا خسارة هاني أنا دجاء إلى هذا لكن أجلس ما تأكل هاي وأنا أكو احترامه أي محده أجلس ما خسارة مرك احترام كاسم إيش كجرنوا ليه رايكين أوكي ميكل محته صاحب كابا إبرو اسكو ديرو أنا مركنا ولا اسكو بدامينه معنا أنا لجزات ميكل اسكو ميدا كديكت معنا ولا اسكو بلمي هذا لجزات اسكو باشالة عمله أرتيتا ولا اسكو بلمي أبا مين اسكو بلمي نورايكين عدو هدي سكر رجعنا كمسؤول مركي اللي ويدي أيه هدي وقت كان عصري أي تهاي أنت وبرها سداس لويرو سو عادي ما وقت كان عصري ونقول لو كنا لاتنا جونا اسبدلين معنا واحد اسبدلين مكل سو اسكما ديكرت الله يموت ماي احترام على الربا او جواب ماي احترام احترام كجرا احترام لو بان يا وير marka aad maxay ku leedahay Roy Keane madadu isku balmi mise wadada sida saxda wuxuu sheegay laba dhinac hadii laga eego dhinac horta si sax ah u sheegay oo wuxuu leeyahay dadka ka waaweyn احترامي مدينين درجة أهم بكاوين مركا مايكل أرتيتا هو كوين يا أبامي والله سعنا وانا هو جميل وتبريز أديات إستجا معلن وقرصن معه ما يقرصوا دي مركا إنه استداس احترامي أهيد ولقب عنك روي كين لكن هدي دينا كان لقصو إيجو هذا الاستوسيو هذا أنا وحميش سو جليسو بوسك روي كين هدو بدرك فيرو كجور لها قرأ عن له بله لكن مانشستر ونقان حقها كويس اللي بدي وقررسني أنا وش كان بلا منها محك جلاسي إلى ميكلا شيكتاي صاحب كان عنده دارو محك جل كوح ما على قابته مركا شيكتا سنة شيكا عدو يسوي دسمه اللين أرسنال أبسولوت من قبنيس أنا أبو وحارة ده يا وحارة ده معلا ماشان وفكيسينا كجرنا فرحدنا الربا إن نلاقي قصو أنا أبورنا فرحدنا فرحدنا أنا أبورنا وحروا إن نلاقي قصان نسكدران أوكي وروا إذن مركا ننكاس هذا معي كلته أنا سوى كوكرا صوبته ننع وحول بورت مركين قفنا سمك وحوله مرنا حمانته نسوي قاد هذا هدارت دو حكى في ريك تدنك حمانته هدارت إنه حكى في ريك تدنك سمانته مركا عندها ميكل إنه هم ما فعلن. أوكي. وحاف فعلت أبو ميان أنتوا برها ويني. ويران ميكل أرتيتا وده. مجلس ولا مستر. مجلس وسوكوي. عيالك حافظوا كذي معنا. أصيل جزات. هذا جي. أصيل جزات. بس كمية كذي. هجامية هنا. محل كنا. معمولة هنا. توبرهن. وحارت ده. ninka noogu sareeyo kooxda taa madaxdeena kooxda wax la dhaaday laakiin Michael wax aku weyneynaysa Michael okay marka taas ka soo tagno tii kale waxay noqonaysaa maxaa ku soo beegay waqtigan la joogo inuu ka hadlo maxaa la Roy Keane arintan waa laga soo badiyay kooxdiisa laga soo badiyno marka inta oo laba dhinac laga eego mid beeta haye in ay tahay raga istusi oo dhiig Manchester ku jiro Roy Keane iyo inay tahay si daacadnimo inuu uga hadlayo leeyahay niyo macalinkaaga weynay labadaas ay mid tahay aniga waxaan isdhow mid taqaana Roy Keane haday daacad ka taxta cid ka qaadaysa marka aad iyo sababtoo kooxdan waa faraxsan tahay
kooxda laga badiyay Roy Keane haddii koox kale ahaan lahayd xataa arrintan haddii uu ka hadli lahay oo tusaale ahaan Arsenal iyo Chelsea ma ka qaadbo Arsenal iyo Chelsea haddii ahaan lahayn labada kooxood ee dagaalamay wada ciyaaray oo Arsenal ay badiso Chelsea laga badiyay Roy Keane hadduu ka hadla xataa arrintan uu soo galo uu ka hadlo waa macnaha farta kuma gudnaan lahayn laakiin kooxda laga badiyay kooxdiisa كابتنكي هورنا واي معقول مسكين اسمه ما لا قاعد كره لكن قبتها روي كين ولو عديتن طابتو مسكين اسكو بالبدا كوخد ودا عيار حتى كوخديسا قيب كمان كوخ كلا حتى ما حتى دي لا ارسنال iyo liverpool arsenal iyo chelsea wada ciyaar roy keen markuu wuxuu falanqeyn lahaa waxa uu intuu weysay erayan abumayanka oo mikal ah waranay xalad kooxda laga badiyay waa kooxda Manchester United macquulna ma miskiinaysa marka reer Arsenal waxay leeyihiin anaga Roy Keane farxadeena naga qasan fiyaa marna macna 14 sano kadib ka badin shaaribaa ku saaran farxada naga qasan aad marka qodobkaas waxaanu ku soo qaadanaynay Roy Keane oo isku balamiyay ama isku diraya macallin Arteta hogaamiyaha kooxda Arsenal iyo kabtanka kooxdaasi Pierre-Emerick Aubameyang